kulankan maanta magaalada Muqdisho uu kula yeeshay madaxweynaha qaatuma Dr. Cali Qaliib Galleer midowga ardayda jaamacadaha Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid madaxweynuhu halkaasi khudbad uga jeedinaya ardayda isagoo uga hadlayay farqiga u dhaxeeya shalay sida Soomaaliya ay ahayd iyo maanta sida ay tahay madaxweynaha ayaa khudbadiisa inta badan ku salaysneed waxyaabaha rasmiga looga baahan yahay qofka muwaadinka Soomaaliyeed in uu wax kaga qabto xaaladda dalkiisa uu ku jiro gaar ahaan ardayda jaamacadaha oo ah dadkii bedeli lahaa siyaasiyiinta hadda dalka hogaankooda haya haddaynu rabno inaynu taxliil ku samayno arrimaheena maamulkeena iyo siyaasadeena iyo arrimahan nabadda iyo arrimahan dhaqaalaha iyo waaynu taariikhda dheer dib ugu noqono mar walba waxaa muhiima inaynu eegno innagu mujtamac ahaan xaggaynu joognay xaggaynu hadda joognaa xaggee baynu u soconaa arrimaha u baahan in aada looga fekerana waxaa ah dadkana dad raaxatay ahaayeen dad hadday beeraleeyihiin beero yaryar oo roobku markuu doo hoogaa galley iyo adhuugna ay hoogaa beerbeertaan laakiin mashaariicdan waaweyn iyo dhulka sida looga faa'iidaysanayo horumarka weyn mid aynu lahayno dhaqan lahayno maaha waxaaba dhibahay xitaa intaa xoogaaga yar beerata waxa iyagu cunaan mooye waxa kale xaggay ku kaydiya bakaaraha oo dhib ay hadda goor wastage in badan inay ka lunto waxaan u rabaa inaynu mar walba ogaano mujtamaca siduu u socdo isagu uma kala saarsaaro siyaasad iyo nabadgelyo iyo dhaqaale waxaynu u rabnaa taxliisha inay noo sahasho bal meelahay wax barayaan meelaha wax laga abaari karo meelaha aynu ka tashan karno waxaad moodaa dhibaatooyin culusna waa ina hayaan qarannimadeeniina meel xun yay runtii maanta taallaa sidee baa horta intaynan qofba ra'yi iska jeedin waxaynu taxliil yar aynu heshiis ku nahayna ma isla helaynaa siyaalo even aan u tilmaami karno biciidka noqon inaynu tilmaamo laakiin aan qalan hilibkiisa qaybsano waxaynu cuni karna mooye waxa kale habaynu meel ku dhigano siyaasadda iyo waddan qarannimaduna waa saas oo kale habaynu wax ku wada tilmaami karno odhan karno wallaahi ceelka ina hayaa halkaas uu yahay dhakhtarka haddaad u tagtay adoo xoogaa xanuuni ku hay su-aaluu ku weydiinaya siduu symptomska ama meelaha tilmaamaha aada u sheegtay lagaa hayo hadduusan ku waahelin oo dhiig kaa qaaday oo kaadi kaa qaaday ma uu ogaan karo waxa ku haya dawana kuma qori karo ma eegi karo cudurkaas haddaan wax laga qaban muxuu noqonayaa trajectoryga meeshuu aadaya graafka ma samayn karo arrinta siyaasaduna waa taa